meheradan iibinaysa shaaha barafka ayaa waxay yimaadeen nin waalan oo maskaxda ka jiran. Haddaba markuu meesha istaagay way fahmeen in nin waalan yahay. Waxay isku dayeen ninkan iska kaxeeyaan oo iska sabaan. Kadib iyagoo ninka iska sabo shaah siiya ayaa waxa dhacday in shaqaalaha kamid ah oo iibinay shaah in timaas u jiiday. Waxa dhacday qoraadal ka taalay oo cabitaan ku jira in dhulka jaro. kadib way la hadleen horeeyay waxa sameynaysaa bay ku yiraahdeen moodina caynayaan uu si xanaaqay kadib waxa sameeyeen iska kaxay hor iska kaxay mashaahas hore u siiyaan shaahi buu qaaday iyagu wajiga kaga dhuftay qoraarad kale hadana qaatay way isku dhex yaaceen qoraarad kale u qaatay dadka waan la isticmaal la hadalo ka daayo ka daad way uga sii tartaaba ka daaba lama dhaho wax dhaadin qoraarada kala qaatay ninkan waanaya dadkii meesha ku jiray ayuu dhaawacay u geeskiistay dhaawacyo aan badnayn inkastoo dhanka Ilaahay ka baxsadeen haddana waxa jiray inaad barka saddex dirteed waxa magaalada ku nool kumanaan qof oo aad walwaalan way ka muuqataa waalidu oo wala arkay dharkooda iyo wajigooda iyo timahooda ma kala eego dareemaysa qofka maskaxiyan aan fiicnaan kuna lama dareemayo waalida oo waa ku labisan laakiin gudaha ka waalan inkastoo xun yihiin kuwa gudaha ka waalan ee la dareemaynin hadda fiidiyoga baraha bulshada qabsaday iyo ninkan waalan ee qorarada la dhacaya shaqaalaha meesha ku jira fiidiyowga like saar muuqaalka noo share garee page-kana follow na soo dheh